Turkiga waxay u diraysaa Ukraine nidaamka difaaca ee loo yaqaan S-400 si ay ugu bedelato diyaaradaha F-35 ee ah diyaaradaha dagaalka. Mareykanka ayaa u soo bandhigay Turkiga inay Ukraine u dirto nidaamyada difaaca ee loo yaqaan S-400 oo lagu sameeyo dalka Russia isagoo oo ku bedelanaya diyaaradaha uu Turkiga aadka u doonayo oo ah F-35 lagana qaado cunaqabatayntii ka saarneyd diyaaradahaasi dagaal. Bandhigan Mareykanka u soo bandhigay Turkiga heshiiskan dano isweydaarsiga ah oo ah in Turkiga ay qaadato diyaaradaha dagaalka F-35 iyadana ay Ukraine u dirto nidaamyada difaaca S-400 waxaana sidaa qortay jariirada Washington Street sidana Turkiga ugu dirayso Ukraine nidaamyadaasi difaac iyadana si ay u hesho F-35 cunaqabataynta sidaa ay ku soo afjaranto. Ukraine waxay u baahan tahay hubka difaaca diyaaradaha Turkiyana ay soo iibsatay nidaamkan difaac 4 sano ka hor. Nidaamyadaasi oo Mareykanka aad uga caroonayay markii ay soo iibsatay. Dabadeedna cunaqabatayn Turkiga laga saaray inay hesho diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo Mareykanka lagu farsameeyo. Ugu dambeyntiina Ankara laga joojiyay arintaasi. Shaki kuma jiro nidaamkan difaac haddii ay Ukraine hesho ay wax badan ka bedelayso dagaalka ay kula jirto Russia. Turkiga ayaa haddii ay sidaa samayso ayaa waxaa imaan doonta in dalka Turkiga uu waajihi doono firaaq ah in wadankiisa uu ka maqnaanayo nidaamka difaaca S-400 muddo gaaban waxaana booska u buuxin doona nidaamka difaaca Mareykanka ee loo yaqaan Patriot iyo nidaamka difaaca Turkiga leedahay oo hadda horumarin ku socdo sida laga soo xigtay jariirada Washington Street. sidoo kale sida laga soo xigtay jariirad kale oo Mareykana in Turkiga iyo Mareykanka ay mar hore heshiis ka gaareen arintani kala bedelashada diyaaradaha F-35 iyo nidaamyada difaaca S-400 laba isbuuc ka hor kadib markii ku xigeenka xogayaha difaaca Mareykanka Wendy R. Sherman uu booqday dalka Turkiga. Si kastoo ay ahaataba Turkiga walwal ay ka qabtaa siinta nidaamyada difaac ee Ukraine iyada oo ka cabsi qabta in Russia si weyn uga carooto arintani sida laga soo xigtay jariirada New York Times. Ha yeeshee dhammaan heshiisyadani looma shaacin si rasmi ah.